السلام عليكم. بدنا عرورta jidadka taagan, caruurta dadka kala dhibaato u geersiyaan, caruurta hadalka la badana waxaa eeda la saaraa waalidka ayaa ka soo bixi waayay mas'uuliyadiisa. Siiba aabaha la dhahaa, aabaha ayaa mas'uuliyadaas la dhahaa maadaama aabihii mas'uuliyadii ka soo bixi waayay ama hooyadii ka soo bixi waysay waalidka dib loo celiyo. Aniga laakiin midkaan qaba saana qaba caruurtaada hadday inta yar yihiin xaafadda mas'uul aad ka dhigin marka xataa teenager noqdaan ama mas'uul waxba ka ahayn ka soo qaad wax ay mas'uul ay ka yihiin xaafaddaas marka walaa sariirtooda inay farashtaan mas'uulka maaha wax hadday shaqaystaan wax biilashaas wax mas'uulka maaha haddayna shaqaysan gurigaas ay joogaan waxa gurigaas ka dhaca waxna mas'uulka hebel ama heblaaya ayaa mas'uuliyadan looga fadhiyaa lama dhaho. Kadib hadaa saas dhahdo alxamdulillah, hadaa dhihin badanaa maxaa ku dhacaya maadaama mas'uul ay baahan ma baraniba mas'uuliyadda iyo hadaa sidan samayso birito maxaa kugu dhici karo, hadaa daraagga maxaa kugu dhici karo, hadii ii sheegaa dadka disho maxaa kugu dhici karo. waayo mas'uuliyadii marka hore laga soo qaaday. marka insha Allah caruurta hadday yaryihiin 7 sano 6 sano 5 sano hadday yaryihiin iyo 18 sano iyo wixii kasii hadday yihiin markasta ilmaha xaafadda ay ku nool yihiin ka saara mas'uuliyad iyo ka gooni oo cid kale la xisaabtamo iyo ka hebel ama heblaa kan mas'uul ka tahay.